عشاء تلحيس يديني له وتشوي معان وتشوي قرب بدن وأصحاب شدن وأبوانو وفنانين وأخويانو ودنيا كل دون ديني له كشرة الله سبحانه عبد ولي وينايو شرح حد يسوونه على اسمي ما معصوق سعودان كلامك حسبتي لنا محمد شامع بدانشي سفر سلامة ناس عالم نوصران عدنا ديني لو صعنا وكوكا أنا وانكو سوقيا صنقو أدو نبدا صنقو أدو نبدا صنقو أدو نبدا صنقو أدو نبدا أنا أوجا دار أدها وسلا شانسا صبايا سامو هدايك وهيدا ناسيد إنو قنبامبوي أنا وانكو سوغايا صنقو أدو نبدا صنقو أدو نبدا صنقو أدو نبدا صنقو أدو نبدا waxaan sababteena walaalkeena samafale wariye maxamed axmed jaamac bidaanshe oo ahaa runtii wariyaashii aan laascanood ku wada shaqeynay muddadii aan laascanood ka howlgeli jiray waan u mahadnaqayaa gurmadkii quruxda badnaa ee maxamed axmed bidaanshe ka sameeyay laascanood ee ugu talagalay walaalaha beledweyne runtii waxaa tustay kaalinta laascanood ay ka qaadan karto u gurmadsashada walaalahooda Soomaaliyeed waan kaaga mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad waxaan kaaga mahadnaqayaa inaad u taagan tahay ilaalinta sumcadda iyo karaamada laascanood ay leedahay iminkana waxaan ku leenahay nabadgal insha Allah بسم الله مقعي وحمد عبد الرزاق محمد حمدي لبلاد وحنا كان سفر سلام كلها ولكن محمد بداشة مرنا أذكرك وحنا كلها لاسعانود نبتك إن شاء الله نفتي نفت هذا بسفر سلام قلبت وحنا وقت في علق قادنا ولكن مرنا أبتجي مرنا أنا أبتجي والله سعانود كيمد محمد بداشة ومالما كسونا مجال البلوين مجال عنده مجال مقدس مالما كسونا كاسو يمد إن قرمتك بلوين كتشري dhalinyaradi laascanood ka soo aruurisay lacagaha iyo deeqaha marka mudooyinka dib muqdisho ku sugnaa waqti fiican baa wada qaadanay waxaan u maleynaa noqon mayso bidaansho markii ugu horeysay ama markii ugu dambeysay in muqdisho ku kulano marka waxaan ku leenahay walaal safar salaama nabad ku tag laascanood reer laascanood dhan nagu salaan باي بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan safar salaamo leenahay walaalkeen maxamed bidaanshe
oo u socda magaalada Laascaanood hawlo badan oo yimid magaalada Muqdisho waa ku xiiso doonaa waan ku leenahay marnaba adoo nabada noo soo noqon faraxsanahay inaan waqti wanaagsan ku wada qaadanay magaalada Muqdisho walaalkii Maxamed Axmed Bidaanshe oo ah runtii wariye ah saxafiina ah samafala ah Bidaanshe runtii waxaan wada qaadanay waqti aad u qurux badan oo aan ku soo wada qaadanay runtii magaalooyinka kala duwan haddii aan mid iyo laba ku xuso anoo runtii soo koobi karin waxaa ka mid ah Garowe Laascaanood Boosaaso Buuhoole ugu dambeyn runtii waxaan sugnay Muqdisho waliba anagoo hal goob ka wada noolayn way ku adagtahay runtii inaan saaxiibkeen walaalkii dhaho nabadgeliyo laakiin haddana runtii micnaha waxaan runtii odhanayaa saaxiib maaha markii koowaad runtii ama markii suuqay dambeysay insha Allah waxaan runtii isugu imaan doonaa goobo fara badan waqti badan oo noo harsiin insha Allah haddii Ilaahay runtii raalli ka noqdo laakiin waxaan ku leeyahay saaxiib nabad gal insha Allah Laascaanood waxaan leeyahay hal soo dhaweeyo Bidaanshe mudan yahay in la soo dhaweeyo oo ka ciyaari door aad u wanaagsan oo runtii micnaha ay waajib tahay in micnaha lagu soo dhaweeyo xalay markaa Laascaanood Bidaanshe la soo dhaweeyo xana loo kaco mudan yahay halkan maanta waxaan waqti la qaadanaynaa oo sagootin aan u dhigaynaa walaalkay Maxamed Bidaanshe oo safar noogu yimaaday oo nolol jooga Muqdisho waxaan leeyahay nabad tag inkastoo aan la joogaaga waqti fiican aad inaadirna la qaadatay insha Allah waxaan rajeynayaa kulanti dambe iyo mar dambe inaan kulano safar salaam walaalkayna qaaliga Maxamed Bidaanshe oo safar noogu yimid magaalada Muqdisho haddana sagootinayno soo noqdo nabada wiil gabdhaha qaraa maxaa uga haysataan wax si fiican isku hayo meelan jooga ma aday muuqdo midabkaaga hormaraaye naftu muhato marni waydo masanawdo dolmeere bay la tagtee meeday hadda waxaan koraynaa baskiya waan koraynaa waa xili habeenimo dalxiiskii iyo soo dhaweyn waxaan noo soo gabagaboobay sagootinta Maxamed Axmed Jaamac Bidaanshe waxaan u socdaalaynaa dhanka iyo xamar iyo Muqdisho waxaan joognaa hadda meel magaalada ka baxsan waxaan halkan u nimi si aanu u sagootino maadaama maalinta berrita u tahay ما شاء الله
aad ma santiin wallahi barakeeyo dhammaantiin waa ma santiin waa xilli habeenimo waxa noo soo dhamaaday safar qurux badan dalxiis qurux badan jawi wanaagsan aad u qurux badan asxaab iyagoo dhammaantood adiguna aad u qurux badan dhammaantiin qalbigeeda ku haya caalamkii adduunka dhan waxaan tusay reer muqdisho iyo reer laascaanood isku hal qof yihiin asxaabta dhammaan aan isla soo qaadanay waa sagootintii walaalkay waxaan leeyahay safar khayr leh waana ku wada faraxsannahay haddana waxaan joognaa magaalada meel yar oo ka baxsan baan aadnay haddana waxaan leeyahay alxamdulilah